ilduuf siyaasadeed oo laga qoomamayo ayay sameynayaan laga soo bilaabo 1960 ilaa 2025 siyaasiyiinta Soomaaliland waxaana la isku raacsan yahay markii gorfayn iyo qiimeyn lagu sameeyay madaxdii soo martay Soomaaliland inanay daacad ka ahayn aqoonsi raadiska iyo go'aanka ay shacabku qaateen 1991 mar kale warbixinteennana waxaynu ku falaqeynaynaa saddex xornimo doon oo ay Soomaaliland soo martay iyo saddex ilduuf oo ay sameeyeen siyaasiyiinta hogaamiya go'aanka Soomaaliland madaxbannaanideeda dib ula soo noqotaa ma siyaasiyiinta ayaan runka ahayn mise shacabka ayaanu dhabka ahayn oo sida ay ku doodayaan siyaasiyiinta reer Muqdisho waa dad meel ugu xiraysan siyaasiyiinta reer Soomaaliland ma shacabkeeda ayaa hadimo ka talinaya mise siyaasiga iyo ninka hoggaanka lagu aamino ayaa la halaabaya talada hubanti la'aan iyo madmadow ayay ku jireen dadka reer Soomaaliland iyo hayaana aanay weli reer furin laga soo bilaabo 1960 oo ay Soomaaliya u hayaameen lablakacaasi oo ay siyaasiyiin hogaaminaysay kuwaasi oo aan hubsanin halka ay ku wadaan xorriyadii ay Soomaaliland qaadatay iyo halgankii gobonnimo doonka oo ay dadka reer Soomaaliland kaalin adag ka soo qaateen waxa uu ahaa gobonnimo doonkii ugu horreeyay ee geyiga Soomaalida guntiga looga xidho Hargeysina waxa ay noqotay magaaladii ugu horreysay ee xornimo ku naaloota sanadkii 1960 balse hamilaab la kaca ayaa ku jiray oo ah in Soomaalida shanta ah ay meel isugu keento iyadoo aan wakiilka ahayn wax daniina ugu jirin falsafad iyo aragti siyaasi dadka ka dhaadhiciyay ayay ahayd oo aan la iska hubinin aqoonta oo aan dhisnayn iyo odoroska siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo dadku aanay haatan sidii ay ku yihiin ku ahayn ayaana keentay seermaseegto laga soo waqsan waayay iyo xorriyadii oo magaalada Muqdisho loo safriyay guuldaradii ugu horreysay ee hogaamiyayaasha Soomaaliland ay soo hooyaan ayay ahayd iyadoo ah mid ilaa iyo maanta laga qoomamaynayo oo ay ka soo wareegtay muddo ku siman 65 sannadood mar kale shacabku waxa ay guntiga u xidheen gobonnimo doonkii labaad oo ay iskaga tuureen heeryadii dawladii militariga ahayd iyadoo naf iyo maalba loo huray sidii Soomaaliland maanta ay u soo noqon lahayd 10,000 ayaa naftooda u sadqeeyay xornimada ay maanta Soomaaliland ku naaloonayso iyadoo 1991 ay mar kale shacabku go'aamiyeen inay xornimadoodii la soo noqdaan oo ay Soomaaliland noqoto dawlad madax bannaan hase yeeshee siyaasi ayaa markasta la aaminayay oo majaraha loo dhiibay siyaasigu waa hogaamiyaha dadweynaha ku haga hamigooda iyo himilada ay doonayaan isagoo aan dhinacna uga leexan balse hogaamiyayaasha Soomaaliland soo maray ayay fari ku gudan tahay kuwaasi oo aan marnaba daacad ka noqonin inay u hagar baxaan himilada iyo hamiga ay Soomaaliland tiigsanaysay waxaana shacabku guntiga mar saddexaad u xidheen gobonnimo doonkii saddexaad oo ilaa iyo haatan ay heegan u yihiin iyadoo muddo 35 sannadood ah aanay Soomaaliland mar kale xorriyadeeda dib u helin ilduufkii labaad ee siyaasigu uu hogaaminayay ayaa waxa uu dhacay sanadkii 2012 iyada oo la furay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland kuwaasi oo noqday dhacdo iyo tallaabo qaadisteeda si weyn looga qoomameeyay taasi oo keentay dhibaatooyinka maanta ay Somaliland la dhitinayso waxaana koob ka ah hawada Somaliland in lagu wareejiyo Soomaaliya oo laga soo raro hay'adii qaramada midoobay ay lahayd ee dhexda u haysay siyaasiyiin ayaana u huuteeyay oo ilaa iyo haatan hamiga iyo damaca ay ku bedesheen hawadii Somaliland la isweydiinaya waa ilduuf kale oo dadka shacabka ah aanay waxba ka ogeyn waxba u galabsan waxbana kala soconin hase yeeshee qof kasta halkiisa ku saameynaya maadaama uu hogaamiyahoodu go'aamiyay tala ilduufa isagu damac kastaba ku bedeshay oo u danaynaysa halkii ay hore ugu hanqaarmeen warbixinteennani waxa ay ka digaysaa ilduufkii saddexaad oo ay Somaliland qarka u saaran tahay waa in wada hadallada Somaliland dib loo furo mar kale siyaasiyiinta Somaliland iyo Soomaaliya ayaana ah kuwa wejiye badan madaxweynaha haatan talada hayana waxa laga sugayaa inuu ka leexdo wadadii hogaankii hore ee Somaliland soo maray oo habeenkiina Soomaaliya iyo xamar hoosta kala hadli jiray maalintiina shacabka u matiri jiray inay ku taagan yihiin tubtii loo ee toosnayd hayaankana ay ku rarayaan halkii hadafka Somaliland u ahaa hase yeeshee arrintaasi barkumataal ayay noqotay oo ilduufkoodii iyo ayaxumadii ay ku gaareen talooyinka qaarkood ayaa haatan si weyn looga qoomameynaya waxaana laga sugayaa siyaasiga Somaliland inuu isbedelo oo noqdo mid u danaynaya dalkiisa iyo dadkiisa isagoo ku hogaaminaya go'aanka ay shacabku qaateen iyo doonistooda
ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 9560.